waxay ahayd munaasabad lagu maamuusay 12 Abriil oo ku beegan 60 sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 1960kii waxaana maanta lagu qabtay taliska guutada tobnaad qaybta 43aad ciidamada xoogga dalka ee magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka. ciidamada xoogga dalka ayaa dowladda military ku soo maray wadooyinka halbowlaha Garbaharey si bulshada Soomaaliyeed loo dareensiyo muhiimadda maalintan. ugu horeyn waxa munaasabadan lagu maamuusay 12 Abriil ka hadlay gudoomiyaha degmada Garbaharey mudane Imaan Cadow Kaarshe isagoo ka sheekiyay muhiimadda maalintan 12 Abriil. maalin farxad leh bay noo tahay dhamaantay iyo ummadda Soomaaliyeedba. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa magacii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu lahaan jiray uu leeyahay uu lahaan doono sanadkan sanadkiisa kale inaan ku gaarino iyadoo waddankeenna wax cadow oo hawaysan kara uusan jirin. gaashaanle dhexe Cusmaan Shaqabdi Qorra abaanduulaha guutada tobnaad qaybta 43aad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gadow ayaa dhankiisa ku amaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dadaalada ay ugu jiraan xoreynta dalkan cadowga ku soo duulay waxaana dhanka kale ka sheekayay taariikhda ciidamada xoogga dalka. inta kadib waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba gaar ahaan waxaan salaamayaa ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxaan salaamayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta waa sanad guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu ahaa waxaan filayaa cidna kama qarsoona qof Soomaali inay ka qarsoon tahay iska dhaaf laakiin waxaysan ka qarsooneen caalamka aysan ka qarsoonayn iyo adduunka oo dhan waxaan u ambalyeynaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel ay ku soo yihiinba iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan la wadaagaynaa maanta farxadda iyo raynta iyo muraalka iyo inaan ku faraxno maalinkii ciidanka Soomaaliyeed. inta kadib waxaan leeyahay Soomaaliya dhamaanteed maanta waxaan maraynaa in aan dalkeenii aan dib u difaacano inaan dib u soo celinno sharaftii iyo karaamadii uu lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa laga doonayaa wixii ay qabteen ciidamadii magaca faraha badan ku lahaa caalamka adduunka Soomaaliya dadkii xoreeyeen oo sharafta faraha badan iyo qiimaha gaarsiiyayna ahaa wixii ay qabteen baan nala doonayaa inaan qabanno annagu maanta halkan waxaa weeyaan taliska guutada tobnaad oo ah goob furin ah hadda sida la dhihi karo waxaan halkan ugu diyaarsannahay inaan cadowga la sii dagaalanno inaan dalkeenni aan sii qabanno ayadoo sidaas tahay haddana maalinkii ciidanka uu lahaa inaan xusno ayaa maxay noo tahay inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed. Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka magaalada Baardheere ee gobolka Gadow.